بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu wax yar ka dhahaynaa maantay oo maalin jimco ah arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed xaaladahooda kala duwan sida ay yihiin rajooyinka dhalinyarada hooyooyinka waxgaradka aqoon-yahanada culamaa u diinka iyo dadka siyaasadda haya qaabka ay wax ku wadaan runtii waxaa muhiim ah mar walba in shacabka Soomaaliyeed ay indhaha ku hayaan qaabka siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee hoggaamada ama kuraasta ugu sarreeya fadhiya ay wax ku maamulayaan waxaan marar badan aragnaa qaar ka mid ah hadalladoodii hore iyo hadalladoodii dambe marka la isu keeno oo iska hor imanaya sababtuna maxay tahay waxa ay tahay mar walba waxa uu ka duulaya waxa weeye bosishinka uu markaa joogo ee ma lahan qadiyad meel u taalla ee uu ku doonayo inuu ku horumariyo ama wax ugu qabto ummadda Soomaaliyeed tusaale ahaan markuu mucaaradka yahay qofkaas qofka kale wuxuu ku qabanayaa tooshka isagoo shacabka ummadda Soomaaliyeedna isaga dhigaya inuu u wanaagsan yahay oo isagoo qofkaas wuxuu sameynaya wax ka wanaagsan uu samayn lahaa markii meeshuu isaga uu tagana qofkii shalay isagu ma aha marka ma xasuusanayo shalay bosishinka uu joogay sababtoo ah waa qof aan lahayn qadiyad waxaad arkaysaa nin baa maalin dhaweyd wuxuu weydiinayay Soomaalidu siday u wadeen maaragtay barnaamijyada dhoofka ee mar walba luuqa ay la gashay ay ula dabagelayeen bay waxay ula tageen dad ajaaniba inay dadku u soo qaadaan marka nin hindi ah baa wuxuu leeyahay waxaa laiga dhaadhiciyey in aan broses u sameeyo gabar Soomaali ah lacag badanna aan helayo aroos been abuur ah iyo barnaamij noocaasana la raba inaan usoo sameeyo intaa keliyana aan ku ekaan doonin ee aan samayn doono in aan shacabkayga reer hindiye ama asxaabteyda ah in ayagana aan fursaddaas uga faa'iideeyo markii wuxuu leeyahay dadka Soomaalida ah lacag badana 30,000 35,000 35,000 iyo 30,000 qofka haysta waddankiisa ayuu wax badan uga qabsan karaa laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay dhalinyarada iyo dadka Soomaaliya jooga waxay eegayaan wiil ama gabar qaxooti ah oo qurbaha ku daashay sawir ay isaga soo qaatay meel cagaar ah sidaa daraaddeed ma aaminayaan wax walba oo loo sheego laakiin badankood ama kuwa caqliga saaxiibka u ah marka ay yimaadaan oo ay qarash intaa la eg soo galaan bay farta dhexda haddana ka qaniinaan dadku inay wax hubsadaan laftirkooda waxaa u diidan dhibaatada waddanka taalla wixii ugu yaabka badnaay ee maalin dhaweyd arkaynay waxay ahaayeen dad wiilal dhalinyaro ah oo si qurux badan u labisan oo dhexday u xiran tahay oo gaari wata in ay ariga Muqdisho xadeeyeen oo baabuurka saaranayeen markaa runtii aad u sii fiirisid dee waxaa is leedahay talow qofkan magaaja ku kaliftay oo wuxuu cunu waayey meeluu ka shaqaystay miyuu waayey keliya ma eegayno inuu qof tuug ah oo waxadaya uu yahay laftigiisa waa inaan sii eegnaa maxaa kalifay waxaan leenahay marka dhibaatadaas faraha badan ee waddankii dhex taalla waxaa sabab u ah shacabka Soomaaliyeed oo aan ka fiirsanaynin cidda ay u dhiibanayaan hoggaankooda waxaa sabab u ah shacabka Soomaaliyeed oo mowqif midaysan aan ka qaadan karin qadiyadda waddanka ragaadisay ee la hartay ee jeclaysiga ah ee iyaguna ay ku baaba'een
barnaamijkeena maanta intaasaan kusoo ururayna aad baan idin salaamay jimco wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu